Hooyaday haddii ay dhimato oo naxashka ay saaran tahay oo ninkaygu ii diido ma tegayo, waa inaan aqbalaa oo yeelaa amarka ninkayga. Hadalka gabadhan ayaa baraha bulshada qabsaday saacadihii u dambeeyay. Haddaba doodii xalay iyo falcelintii ka dhalatay hadalkii gabadhan iyo muuqaalka dooda ayaynu barnaamijkeena maanta aynu ku dahqaadaynaa. Ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u gudagelin, haddaa channelkan ku cusub tahayna subscribe saar. Asxaabtaada la wadaag soo dhawaada barnaamijka. Gabadhan oo ka qayb galaysa dooda guurka ee telefishinka caalamiga Universal gaar ahaan stuudiyaha uu ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland ayaa waxa ay tiri hooyaday oo meyd ah oo naxashka saaran haddii uu yiraahdo ninkaygu ma bixi kartid oo meydkeeda ma raaci kartid, waa inaan aqbalaa oo adeecaa oo gurigayga aan joogaa. dhinaca kale gabadh kale oo ka qayb ka ahayd ayaa dooda buuq ka abuurtay kadib markii ay la yaabtay hadalkaasi. Gabadhan ayaa waxay sheegtay inay tahay waajib diiniya in amarka ninka la maqlo wax kastoo dhaca. Waxay tiri nabiga Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi haddii qof u sujuudi lahaa, gabadhu ninkeeda ayay u sujuudi lahayd ayuu yidhi, halka ay gaadhay. Gabadh kale oo qayb ka ahayd doodaasi ayaa buuq ka abuurtay meesha. Waxay sheegtay in ninkeeda aanay u ogolaan doonin horumar iyo dhaqaale toonna. Shilinkii jeebkiisa soo gala ayaa ka qaadaya isla markaana kala dagaalamaya dhinaca dhaqaalaha, taasoo dhammaan dadkii barnaamijka soo qayb galay ay ka yaabisay, gaar ahaan dhinaca ragga iyo qaybo ka mid ah dumarka ee barnaamijkaasi ku jiray. Waxayna ku macnaysay sababta ay ugula dagaalamayso dhaqaalaha ay tahay inaanu naag kala damcin, oo haddii uu dhaqaale iyo lacag helo uu damciisu noqonayo inuu naaga kala damco oo uu naaga kale u guursado. Markaasna bay tiri hadduu dhaqaalaha uu haysto yar yahay uu iyada keliya ku koobnaan karo. Dumarkan dhammaan barnaamijkan oo ka baxa telefishinka caalamiga Universal stuudiyihiisa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ka soo qayb galay waxay u wada muuqdaan masayr ay ka qabaan guud ahaanba raggooda. Dhanka kale gabadh kale oo iyaduna qayb ka ahayd dumarka ka hadlay goobtaasi ayaa sheegay inay jeceshahay ninkeeda hadda qaba, balse aanay ogeyn isagu inuu jecel yahay. Sababtoo ah ninkaygu moobil ayuu sitaa bay tiri, anigana moobil dhan waa iska dhaafay. Markaasna waxaa imaan karaa shaki weyn, waayo moobilkiisa hadda waxaa dhex yaacaya dumar badan oo TikTok iyo Facebook xiijinaya oo ma sahlana bay tiri. Markaa waxaa fududaan karta inuu naaga kale barto oo xidhiidh uu sameeyo naagahaasi TikTok yaacaya. Marka aniga ma caddayn karo inuu jecel yahay. Marka qaar shaki badan ayaa iman karaa, marka qaar walwal ayaan sii soo wajahabay tiri. Doodaha ku saabsan arrimaha qoyska ee TV-ga Universal baahiyo stuudiyaha uu ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland ayaa inta badan muran ka dhex abuura bulshada dhexdeeda. Dhowaan ayay ahayd markii gabadh ka qayb galaysay barnaamijkan ay sheegtay inaan sodohdeed guriga imaan karin, taasoo bulshada Soomaalida dhexdeeda buuq badan ka abuurtay. Waxaana waayihii dambe qoysaska isqaba ee Soomaalida ku soo badanayay kala shaki, taasoo sababta furiin inuu yimaado. Waxaana arkaysaa lamaanayaal badan oo uu baraha bulshada ku xidhiidha uu khilaafkoodu soo gudbayo dhinaca baraha bulshada. Sanadii la soo dhaafay sanadkii 2021 ayay ahayd bishii December markii doodii sodohdaasi ay xukuumadda Somaliland ay ka qaylisay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta ee Somaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore ayaa digniin u diray TV-ga Universal inaanu qaban doodaha noocan oo kale ah. Telefishinka ayaa sheegay markii dambe in doodahan ay yihiin doodo ay bulshadu u baahan tahay oo la iska jaahil bixinayo laguna doodayo wixii jira ee markaasi bulshada dhex yaala. Doodahan uu qabto telefishinka caalamiga Universal ayaa doodo waaqic ah oo bulshada dhexdeeda xilligan ka dhex taagan, iyadoo markaasi bulshada waxyaabaha ku soo batay laga doodo bishiiba mar uu ku qabto stuudiyaha uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Haddaba waa tan gabadhi tiri hooyaday haddii ay naxash ka saaran tahay uu ninkaygu ii diido
anigu ma raacayo waa inaan maqlaa amarka hooyaday iyo doodii oo dhammaystiran daawasho wacan haddii hooyadii oo geeriyeysan oo naxashkii saaran uu zawjkayga igu idhaahdo halkaa kama bixi kartid hadday ka suroodo weyn halkaa kama bixi kartid hadalkiisu waa inaan maqlo oonan ka bixi karin ismaqalku waa kaa markuu kaarkood u dabacsan rumarka laysku sheegay kaama fogaanayo adoo u naxariisanay tan kale markii aan ilmo dhalo hablaha markaan ilmo dhalay shulaqa aan noqdo dee ama aan isku dhex dhaco sidee iskugu dhex dhacda waabad ogtahay haddaad isku dhex dhacdo naa kala raadsanayay sidee ishagaashiis qabo shaahe dee umushuna shaahi caanaa iska ilaaliso waa shaahi caanaa ninka waa jeebkiisun baa lala socdaa inkamka soo gelaya aniguba dee dakhligiisa qayb baan ka aho xaaskiisii baan ahay $1 hadduu soo galo waa laga siibaa un si aanu gabadh kale u guursan markaa kaale ma waxaad doonaysaa iikaadii ma waxaad doonaysaa haddii inaanay ninkani waxba u kordhinba inaanu waxba u kordhin baan doonayaa anigu kaasheerkiisii baan ahay lacagta isticmaali maayo soo maaha aniga ninkayga waxba ma kala lihin marka waan u haynaya waxaan diidanahay ninkaaga mar kasta oo uu jeebkiisa waxo kordhaan waa mar kasta oo uu damco inuu gabadh kale kula guursan imika anu odayga waan jecel alxamdulillah laakiin inuu isagu jecel ma cadan karo oo ma oran karo uu jecel yahay ma imika odaygaaga hadda wada joogtaan ma cadan kartid ku jecel ma cadan karo sababtuna cadan kar laayo waxa weeyaan de waa caadi waa hadli kartaa haye sababtanu cadan kar laayo waxa weeyaan qofkii mobil buu isticmaalaya waxaan wadanaya anigu anigan iska daayo mobilkeed inuu mobilka iska daayo inuu waxaan doonayo ya mobilka ha shakigu waan mobilkan ka qababa waxaan uga shakisanahay qofku markuu xataa sa mobilku farstaan meel baa xanuuntada tiktok ba soo galsa adoo habis ka dhigo qurux badan bay naag waxaan ku yiri si kale soo istaagaysaa tan warkii adigu ku ilaahay waa daalo seexanayaaba de markaas aaroogi markii wadnihii aad sawirto ee aaroogi de aad saa u dhaafisay indhihii gantaaliyi jacaylka sidaa loogu sawiro waxa dhacaysa indhihii ooyaha kaftan baa jacayldaada murtiibaaba kiciisay intaad keena duuyiyo kordhi maalis leedahay kaxbanahaye moogtahay markaas warqadaas fariintaas boosta ma la dhigay hore ma u gaadhay inankii ma gaadhay ama cajalad ma lagu duubay degdeg buu soo goosanaya wuuba soo degaya horta waxaan ka daba tegaya heesta iyo xaljida intaan idhaahdee anagoo sacuudi arabiya joogna ayaa heestaasi soo baxday berigaa cajalada yar baa laysu diri jiro waa garansar kodho yara cajalada lahaa waa dhegeysa ma guryaha waxaa lagu seexan jiray 20 qof odayaal meedhan oo odayaashii hore aad garanayso dhalinyarana anoo markaa ciyaan suula ana la geeyay meesha inaan wax ku barano heestaasaa lagu soo baxday odayaashii markaa dhalinyaro aniga nin kale meesha joogna heestii baa la saaray meesha waxa dhahaan adeer noo sheeg inta maxay leedahay saan ku yiri waxay leedahay kaliya sariirtan kududaaya moogtay kurba mala caruurtu والله وارنتيده بوري subaxdii tigidhada goosto wallahi ma ku sheegin toonba tigidhada goosto soo duulay mid baan ninkay ilaaway horta anu malahaym karaaliyan iman isleen sababtoo anigu qofan xidhiidhim kala leeyahay qofkaasna aad iyo aad baan u jecelahay hadana qalbigayga been sheegin anigoo qofka la sheekaysta oonan weli nolol wadaagin aad iyo aad baan qofka ugu kalsoonahay sababtay kalsoonideena waxa keenay qofkiisa kalsoonidiisii haddii aan isaga midmadu ka arki lahaa kalsooni kuma aan qabi lahayn kii hore igama samaysan baan isleey laakiin kanimka uu iga samaystay haddii hooyadii oo geeriyeysan oo naxashkii saaran uu zawjkayga igu idhaahdo halkaa kama bixi kartid hadday ka suroodo weyn halkaa kama bixi kartid hadalkiisu waa inaan maqlo oonan ka bixi karin ismaqalku waa kaa markuu kaarkood u dabacsan rumarka laysku sheegay kaama fogaanayo adoo u naxariisanay tan kale markii aan ilmo dhalo hablaha markaan ilmo dhalay shulaqa aan noqdo dee ama aan isku dhex dhaco sidee iskugu dhex dhacda waabad ogtahay haddaad isku dhex dhacdo naa kala raadsanayay sidee ishagaashiis qabo shaahe dee umushuna shaahi caanaa iska ilaaliso waa shaahi caanaa adiguna aad baad mahadsantahay tan tasamirkan ka hadlaya haddaad si kasta u samirtid haddaad si kasta u samirtid ood ilaashatid ood wax walba adigu ka soo tagtid isagii baan maxaa la yidhahdaa kaa keensanaya samir weydo samirkii wax walba aad waa samaysid isaga kaa keensanaya markaad aragtid wixii aad samirtay wixii oo dhan isagu inuu hawlihiis iska wato adiguna qasbiyan hawlahaaga waad bilaabaysaa marka taas ayaa keenaysa hal mar aan kuu sheego u jawaab
qofkan oo dunida qofkan aad dunida ugu jeceshahay naaw qofkan aad dunida ugu jeceshahay aad u samrayso aad intaas oo dad ku sameynayso ilaahay muun awoodan hal bar inuu qalbigiisa ku soo jeediyo laakiin hada lagu imtixaamaya wali gana samarkaaga lagu eegaya maxaad ka leedahay iida maxaad ka leedahay hadalkeena iyo aamusa maxaad ka leedahay maxaan samirkii ku gaadhay imaka intaan samirkiiba gaadhin waxa imanay khilaaf markuu yimaado isagina lugtay ma dhigayo waxay noqonaysaa waar warqadeeda si waan ku siini arsaco waxaad ku sheegaya ha ilaawin ubad inuu dhexdiina yaalo ma ninkaa kuu cad ubad inuu dhexdiina yaalo ha ilaawin xitaa haddaad isaga ixtiraam weyd ubadkiina ixtiraama imika khilaafka badanka dhex taagan waxaa weeye hooyadii aabihii khilaafka ilmahooga iyagu dhex taagan bis khilaafaya oo islaynaya udhiib isagu wuxuu oranayaa ubad kale waad heli gabar kale waad heli tan way buuq badan taa ku dhaafto tan kale uu doonanaya buuq iyo qaylo ma laha iyadu kalgacaylku wuxuu yidhi inan yahay jacaylku waa aniga kowdhe iyo adiga labadhe iyo eheladeennii kaasaa la yidhahdaa kalgacayl wuxuu dhex maraa labada qof iyo waalidkood ilaa ugu yaraan 30 xagga inanta ka socda iyo 30 xagga inanka ka socda iyo waxa isku dhalaan laakiin waqtigan aad ku jirtaan sheekada maxaad xaqiiqada uga hadli weydeen maxaa keenay inidaan aad ku sheekaysataan sheeko iyo malawaal aan jirin oo aad uga hadli weydeen waxyaabo badan oo ii sheegay baan jirayn waxyaabo badan oo markaa ka wada hadalay baan jirayn marka halkaas ayuu ka imanayaa burburka iyo isfahan waagu qodobka kale ee researchkiisa uu ku sheegay ee guurka waxyaabaha burburiya marka hadlay khilaafka kamid ah waqtiyan dabarna anti waxa aad u soo farabatay yani khilaafaadka ama hadalka iyo gorgortanka guurkii hore waxaan isleeyahay wala kala dambeyn jiray wala ixtiraami jiray la isma hadal baran jiray laakiin imka waxaad moodaa in aad la isku hadal baranayo oo markiiba la isku jawaabayo oo maalintii laga yaabo in 7 jeer ama 8 jeer la isku dhaco dumarkana hal mid ma oranayaayo waxaan leeyahay horta bisad ha noqonina bisadu waxaa la yidhaahdaa kalluunka ay aad bay u jeceshahay haddana inay biyaha gasho ma doonto way nacab tahay bisadu raaxada aad bay u jeceshahay oo meel dugsoon oo furaashin seexata aad bay u jeceshahay haddana iyadu guri may tabcanin tacabna ma taqaano